Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qaaliga ku xidhan channelka Handmade with Asma kusoo dhawaada videogeeni cusubaa insha Allah oona maanta kaga hadli doono sidaad u samayn kartid qaabka goobada hadda ka hor videoyi aan ku shaqeeyo way jirtay laakiin maan sharxin sida loo sameynayo waxa aan maanta insha Allah kusoo bandhigi doonaa sida aad u sameynaysid wareegga ugu horeeya ee lagu shaqeeyo goobada sidoo kale sidaad goobada usii ballaarinaysid ayaan dib ugu noqonayna oo videoyadii hore iyadana kusoo sharaxnay laakiin iminka insha Allah kasii waadaxsan arki doontaan idinkoo iyadoo lasii ballaarinayo yacni goobada oo laga dhigayo goobo matalan oo kale ballaarhkeeda lagu sameyn karo boorsooyinka oo kale goobada waxa loo isticmaalaa waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin boorsooyinka waxa loo isticmaalaa matalan mafrashyadoo kale waxyaabaha lagu qurxiyo miisaskoo kale ama fadhiyadoo kale iyo boorsooyinka accessorieska ama bulukaatiga iyadana waa lagu sameyn karaa marka insha Allah waxaan rajeynaynaa videogan inuu aad idin anfici doono wax badan ka faa'iidi doontaan maanta waxaan ku shaqeynaynaa xadhiga la dhaho clean maaha muhiim yani inaad xadhigan ku shaqeysid xadhig kastoo ku yaalo waa ku shaqeyn kartaa laakiin يعني haddii qofku boorso kale uu rabo inuu ku shaqeeyo dad badan bay isweydiisa boorso loo sameynayo xadhigani waa xadhiga ku anfacaya boorsooyinka xadhkaanta dhan waa lagu sameyn karaa ama xadhkaan kala duwan baa lagu sameyn karaa maaha xadhkaanta dhan laakiin xadhigani waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay xadhkaanta ugu fiican lagu sameeyo dhowr qof ay soo weydiiyey clean baan rabnaa xagee noocyo soo qaadanaa horta ballaadhka saasoo kale weeyaan oo waa cinjir maradiisuna way kala jiidmaysaayo haddii aan idiin tusaale ahaan idiin sheego tarxadaha ama khamaarada injirka ah ee wadanka yaallo kale maradeeda weeyaan marada laga sameeyey marka qofku wuxuu sameyn karaa haddii uu tarxada xataa haysto aanu u baahnayn oo injir ah ama ka xumaaday ama meel ka duleeshamay ama uu iska tuurayo oo ka daalay wuxuu sameyn karaa wuxuu u jarjari karaa intuu maqas soo qaado liidmo islaaleeg oo dheerar ah si uu ugu barto liidmadaas ku sameyn karaa kolley dee yani size weyn ma noqonayso laakiin at least yani ku yar farsamo baran karaa haddii aan la idmo xadhigan sida aan idiin sheegay ballaarhkiisu kala duwan yahay kuwa intaa kasii ballaaran baa jira kuwa kasii dhuuban baa jira kala jiidkan iyo cinjirnimadan xataa way ku kala duwan yihiin qaar xoog cinjir u ah baa jira qaar cinjirkooda is yar haystaa jira marka haddii aan bilowno insha Allah maanta kow waxaan idiin sharxayaa goobada marka la sameynayo wareegga ugu horeeya goobada lagu xidho wuxuu ka duwan yahay wareegga lagu xidho silsilada ama markii shaqadaad u wadeysay sida gudubka ah haddii aan eegno wuxuu ku kala duwan yihiin horta xadhiga sida loo qabanayo waa ka isku mid halkan waa inay laba liid oo isbarbar yaalla ku ahaadaan halkanna laba liid oo isweydaarsan ay noqdaan oo kii yaraana bidixdaada maraya ka dheerna oo halkan midigta kaa marayo kadib waxaad keenaysaa irbadda adigoo kan hore halka hoose kasoo gelinaya kan hoosena kusoo qabanaya waad kasoo dhex saaraysaa waanad ku wareejinaysaa hal mar saasoo kale ugu wareejinaysaa kadib intaad shaqadaada saas u qabatid ayaad waxaad samaynaysaa waad kasoo saaraysaa markii aan silsilada samayn jirnay xadhigan aan jiidi jirnay si uu duleelkan ama wareegani u yaraado ay meesha u guntanto laakiin goobada lama jiidayo goobada waxaad samaynaysaa adigoo saas u haya halkaas shaqadan halkan dambe waad sii daynaysaa halkanaad intanaad dhuunta qabanaysaa cashaan inaanay kaa cararin ama kaa furmanin ama aanu kasoo bixin wareegani irbadda waxaad samaynaysaa hal mar ayaad xadhiga kusoo wareejinaysaa irbadda kadib waxaad kasoo dhex saaraysaa goobadii aad markii hore samaysay sidaas haddaad ka saartid iminka goobadaadu ma kaa furmayso unless ay halkaa kasoo baxdo yani waad ka xidhay halkan markaa ma furmi karto waxaa la dhahaa goobada kuu samaysmaysa hadda ka hor waan soo sheegay waxaa la dhahaa daa'ira sixriya ama magical circle baa la dhahaa goobo musixir ah bay dhahaan laakiin yani sababta ay u dhaheen haddaan isku dayo inaan sharxo waxa weeyaan markaan iminka ku dhex shaqeyno yani aan ku sameyno tuliinka gudaheeda waxay yeelanaysaa meel ay ka duleesho ama dhexdaa godmaysa
marka waxaad sameynaysaa kan xadhigeedan yar ayaad jiidaysaa, marka jiidid way isku soo durkaysaa. marka intaasi ka wadaan yani inay magical tahay. haddii aan idin tuso tusaale ahaan oo kale iminka shaqadaada marka saas oo kale u qabatid waxaad ay nooc yani tuliin ah oo idiin soo sharxay baad ku shaqayn kartaa. haddii aan matalan oo kale tusaale ahaan oo dhan waxaan ku shaqaynaynaa tuliinka buuxbuuxinta 5 xabo 1 2 3 4 5 baan ku shaqaynay. haddii aad halkan ka eegtid waxaad arkaysaa silsiladihii oo waadixa waxa weeyaan 1 2 3 4 5 kan dhuunta ku jira goobada isagu ma xisaabsana. waxaan idinka ilaaway marka u horeysa ee aan goobada sameynay silsiladii aan ku xidhnay waa taasay noqonaysaa. taa way ka yar tahay silsiladaha kale caadiga gudahayna ku jirta. waa inaan calaamadinaa marka ugu horeysaba aan ku wareejino ama aan xidhno si aanay nooga furman goobadu. waad calaamadinaysaa sababtoo ah waxay kuu noqonaysaa layn kasta oo silsilada ama wareeg kasta oo tuliin ah oo wareejisid ama aad kusii kordhisid goobada waxa weeyaan waxay noqonaysaa meesha aad ku xidhaysid goobadaada. marka iminka waa idinka arka markaan sameynay 5tii goobadii weli goobo uma eka. haddii aan idin tuso haddaba sidan xadhigani waa ka yaraa markaad jiidid waa inay shaqadaadu isku soo durugtaa sidii goobo haaf goobo kale ayay noqonaysaa. kullama aad jiidid goobadaas ama daroolkaas dhexda ay ku leedahay wuu sii yaraanayaa ilaa u xidhmo saas oo kale. marka saas ayay ka wadaan magicalka. waxaan sameynaynaa markaa hadda iminka waxaan rabnaa goobadii 5 tuliin oo buuxbuuxin ah ayaan ku dhex sameynay. waxaan doonaynaa inaan isku xidhno. marka waxaan sameynaynaa halkan dacal baa kaga jirta irbadu ay duntii ay kaga dhex jirtaa. halkanna waxaan haynaa calaamadii aan ku calaamadinay tuliinkii u horeeyey ama silsiladii horeysay aan ku xidhnay goobada. marka waxaan isku xidhaynaa kan iyo kan ay ku jiro markarku ama calaamadiyuhu annagoo isticmaalayna warsada siibata ama tuliinka siibta sidii aan idiin soo sharxay. markaad ka furtid waxaad sameynaysaa waxaad dhex gelaysaa koonahan markasta way ka hooseysaa qayb kalena waxaad moodaysaa qaybteeda kale xataa inay gudaha ku jirto haddii ay waadix tahay. halkanna way ka hooseysaa sidii yani uma samaysna qaabkay u samaysan yihiin labadan silsiladood. marka waxaan sameynaynaa cafwan marka waxaan sameynaynaa waxaad kusoo wareejinaysaa dunta xadhiga waxaad kasoo dhex saaraysaa halkii aad gashay haddana waxaad kasoo dhex saaraysaa tan kale. sidaa waxaad ku xidhay goobadii saasay kugu ekaanaysaa. kadib waxaad adigoo aan ilaawin waxaad sameynaysaa markarkaaga ama calaamadiyahaaga ayaad waxaad ku calaamadinaysaa silsiladii u dambeysay aad ku xidhay shaqadaada adigoo markastaba hubsanaya tirada kuu taala. silsilada ugu horeysa waa tirinaysaa 5 bay ahayd 1 2 3 4 5 iyo 6 oo aan ku xidhnay. marka waxaan sameynaynaa hadda iminka sidii casharkii hore aan ku sharxay wax la dhaho tazaayud. tazaayudku waxa weeyaan waxaan doonaynaa inaan goobadu ay noo sii ballaadhato oo inoo sii weynaato. sidaan markaa u weyneynaynaa goobada waxaan u weyneynaynaa inaan silsilad kasta ku shaqeyno korkeeda 2 silsiladood. yani halkii silsilad korkeeda waxaan ku shaqeynaynaa 2 silsilada labaad 2 silsilada labaad kusii xigta 2 saasaan kusii wadaynaa. yani waan laba jibaaraynaa silsilad kastaba. marka haddii aan bilowno silsiladii u horeysay waa tan halkan waxa weeyaan haddii aad u jeedid waa halkii kasoo baxday duntu aan ku xidhnay goobadeeni. marka silsiladii koobaad waxay noqonaysaa tan. silsilada koobaad markaad gelaysid waxaad gelaysaa
awal hore waxaan geli jirnay labada dacal ee silsiladu ay ka kooban tahay dhexdooda ayaan geli jirnay. Ma gelayna markaan labada dacal dhexdooda, waxaan gelaynaa labada dacal halka ka hooseysa. haddii aad u fiirsatid bartaa waxaa jira dacal halkana iyo dacal halkana oo labada silsiladood barta iska qabsanayaan ku hoos yaala. haddii aad sii jeedkeeda eegtid waxay noqonaysaa meesha aad u jeedid oo halkan sidii wax liidoo kale ah uu ka yahay duntu ka tahay. halkaa gudaha laakiin ayaad ka arkaysaa dacal halkan iyo dacal halkan oo gudaha ku jiro yariis ah. labada dacal liidkaa dhex mara haddii waadix idin yahay waxa weeyaan liid dhexdiisu way duleeshaa, kaasan kasoo dhex baxayna. marka haddii aan bilowno labada liid baan dhex gelaynaa. labada liidna waa inaan kasoo dhex baxnaa. okay. cafwan marka waxaan sameyneynaa isla meeshii baan gelaynaa mar labaad annagoo dunta soo jiideyna. kadib gursad buuxbuuxin ah haddana ku dhameyneyna shaqadeena. marka waxaan sameynay hadda silsiladii u horeysay ayaan waxaan ku dul sameynay 1 iyo 2. labadaas silsiladood baan ku dul sameynay oo midna tan tahay ay dunta kasoo dhex baxsantay midna tan tahay. silsilada ku xigta waa tan halkaas ay isaga dhex imanayaan labada silsiladood. labadii dacal ee aan idiin sheegayno waa kuwaas liidkaas u dhex maro. labada dacal ayaan dhex gelaynaa annagoo hubsanayna inaan labada dacal ee kasoo horjeeda kasoo dhex baxno. iminka waa khalday maan kasoo dhex bixin. labada dacal dhexdoodii waa taa. markastaba waxaad isku dayda inaad hubisid inaadan meelahan geesyadan oo kale kasoo bixin ama geeskan kale aanad kasoo bixin ood kasoo baxdid labada dhinac ama xarafka viiga dhexdiisa. waad soo jiidaysaa gursad waxaad ku xidhaysaa buuxbuuxin ah. haddana dib aad u gelaysaa isla meeshii aad gashay markii hore adigoo soo jiidaya oo haddana xabad kale oo buuxbuuxina sameynaya. saasaad ku wadaysaa adigoo safka dhan hubsanaya inaad markastaba geshid labada dacal dhexdooda. aad kasoo baxdid labada dacale kale xagga dambe ku yaala iyagana dhexdooda. xataa haddii aad awoodeysid faraxagad yani isticmaali kartaa si aad u kala durkisid aad u hubsatid inay laba dacal kasoo dhex baxday. haddii ay gees kale kaa marto ama aanay kasoo dhex bixin labada dacal waad dareemeysaa oo duntu isku si uma gelaysa, yani waad dareemeysaa inay duntu si fudud meesha ku gashay. hadhow toolana isuguma kaa ekaanayaan shaqadaadu isuma wada ekaanayso. marka mar labaad baan ku noqonaynaa haddana stitchkii saddexaad baan maraynaa 2 ayaan ku kor sameynaynaa. marka maxaa inoo hadhay? waxaa inoo hadhay kan afraad iyo waxaa inoo hadhay kan shanaad. kanna waa kii lagu xidhayay. marka waxaan sameynaynaa kii afraad ayaan gelaynaa haddana annagoo hubsanaynaa inaan labada dacal dhexdooda kasoo baxno. waan soo jiidaynaa hal tooliin oo buuxbuuxina ayaan ku sameynaynaa. haddana isla meeshii baan gelaynaa waan soo jiidaynaa. haddana waxaan sameynaynaa hal tooliin oo kale oo buuxbuuxin ah. waxaa noo hadhay stitchkii u dambeysay inaan ku shaqeyno ama kii shanaad inaan ku shaqeyno waana kaa idiin muuqda. kadib waxaa ku xiga kii lagu xidhayay. marka waxaan sameynaynaa haddana halkanaan gelaynaa labada dacal dhexdooda annagoo hubsanayna inaan kasoo dhex baxnay labadii dacal cafwan ee dambe dhexdooda iyagana. yani waa inaad halkan horena ka gashaa dhexda, halkan dambena kasoo baxdaa dhexda saas oo kale. marka waad soo jiidaysaa dunta 2 ayaad ku sameynaysaa. marka koobaad adigoo sameynaya hal tooliin oo buuxbuuxina haddana waad dhex gelaysaa waxaad soo jiidaysaa xadhiga. haddana waxaad sameynaysaa hal tooliin oo kale oo buuxbuuxina. sidaa waxaa ku dhamaaday safkii. haddaad doonaysid waxaad hubsan kartaa inta tooliin ama inta stitch ama silsiladooda aad sameysay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sidaas sax weeyaan. markii hore waxay ahayd 5 5tii marka mid kastaba 2 ku dul shaqaysid 5 2 ku dhufo waa 10.
waxa kuu dheeraa markii hore waxay ahayd ta lagu xidhayay oo 6 ahayd iminkana iyadiibaa kuu dheero kuu harsan waxayna noqonaysaa tirada 12 tirada guud markaad xidhaysid waxaad sameynaysaa halkaas haddii aad u jeedid silsilada stitchkan hadhay yani wuu ka duwan yahay kuwan kale haddii aad u fiirsatid xataa wuu ka yar gaaban yahay hoos buu ka yar xigaa marka waxaad sameynaysaa gudihiisaad gelaysaa saasoo kale aad u dhex gelaysaa duntaad soo jiidaysaa dunta markaad soo jiidid laba xalba waad haysataa inaad isla tanun ka soo saartid oo isaa kugu xidhmato mid kalead haysataa inaad silsiladan ama yani silsiladaadan ugu horeysa qeybteeda dambe ama xarafkeeda dambe xaraf hore iyo xaraf hore ama dacal hore iyo dacal dambe ayay silsilad kastaba ka kooban tahay dacalkaa dambe ayaad sii gelaysaa haddana duntaad soo jiidaysaa adigoo kasoo wada saaraya dhammaan goobooyinka irbadda kugu jirta haddii aan ku celiyo haddana waxaad maraysaa safkii labaad xidhitaankiisii markarkii ama calaamadihii waad ka saartay waxaad gelaysaa markarku calaamadiyuhu silsiladii ku jiray hoosteeda kadib waxaa kuu soo baxaya laba goobo xadhig aad soo jiiday adigoo aan weli xadhiga soo jiidin baad waxaad gelaysaa silsiladan ugu horeysay shaqadaada dacalkeeda dambe kadib waxaad soo jiidaysaa dunta adoo kasoo saaraya dacalkii dambe kana soo saaraya duntii markii horead soo jiiday kana soo saaraya wareegii irbadda ku jiray marka saas waxaad ku xidhaysaa shaqadaadii kadib dibbaad haddana u calaamadinaysaa cafwan dibbaad haddana u calaamadinaysaa safka halkaad ku dhameysay si aanu kaaga lumin ama aanad u khaldamin hadhowtooda iminka sidaas waxaan shaqeynay laba saf safka saddexaad waxaan shaqeynaynaa isla sidii safka labaad oo aan ka wado silsilad kasta waxaad ku shaqeynaysaa laba tan labaad ku shaqeynaysaa tan labaad ku shaqeynaysaa tan labaad ku shaqeynaysaa tan labaad korkeeda ku shaqeynaysaa saasoo kale yani waxaad dhammaantood ku wada shaqeynaysaa tazaayud adigoo hubsanaya inaadan midnaba ka tegin sidoo kale adoo hubsanaya inaad markastaba dhex gashid labada liid ama labada xaraf ee stitchka ka hooseeya halkan dambena hubsanaya inaad labada liid kasoo dhex baxdid oo aanay kaa khaldamin tirada guud ku noqonayaan waxa weeyaan inay ahaataa 20 oo sababtoo ah 10 baad iminka haysataa 10 markaad mid walba laba ku dul samaysid 10 laba ku dhufo waxay noqonaysaa 20 21 waxaa kuu noqonaya kad ku xidhaysid marka aan sameyno kadibna aan soo noqono waan igu soo noqday markaan dhameeyey safkii saddexaad oo aan dhammaantiiba ku wada sameeyey bahalkii tekniinka ama toliinka tazaayudka ama laba jibaarinta kaas oo aan ku yidhaahday halkii stitchba ama halkii silsiladba laba silsiladood korkeeda ku shaqee weydiin muuqataa hadda way kasii ballaarinaysaa markastaba marka lagu sii shaqeeyo haddii aan tirino weli maan xidhin haddii aan tirino waxa weeyaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 iyo kan aan ku jiro oo 20 ah markaa saas waa sax 20 kan aad ku xidhaysidna waa inuu noqdaa kii 21aad haddii aad sidaas ay tiradu kaa khaldan tahay macnaheedu waxbaa kaa khaldan markastaba waa inaad shaqadaada tirisaa oo aad hubsataa inay tiradii saxda ahayd ay ku tahay markaad xidhaysid sidii tii hore aan u xidhnay wuxunbaad gelaysaa in halka hoose stitchka kadib waad soo jiidaysaa xadhiga markaad soo jiidid haddana waxaad gelaysaa stitchkan ugu horeeyay ama silsiladan ugu horeysay dacalkeeda dambe adigoo soo jiidaya dunta kasoo wada baxaya dhammaan goobooyinka aad ku haysatid silsilada kadib adoo aan ilaawin waa inaad xidhaa calaamadyaha aad ku xidhaa silsilada ugu dambeysa ee wax lagu xidho si markastaba ay safku kuugu dhex dhamaado yani aanay kaaga khaldamin safku halku ku dhamaanayo iminka shaqadaadii waatan waxaad doonaysaa inaad sii kordhisid sidaad usii kordhinaysaa marka safkii ugu horeeyay waxaan shaqeynay 5 6na waan ku xidhnay safkii ku xigay waxaan ka dhignay 10 oo laba jibaarin baan ku sameynay 11 waxay ahayd tii aan ku xidhnay safkii kusii xigay laba jibaarin baan iyadana ku sameynay oo waxaan ka dhignay 20 silsiladood 21 waxay ahayd kii lagu xidhay iminka waxaan sameynaynaa
silsilada ugu horeysa waxaan ku shaqeynaynaa waa safkii afraad silsilada ugu horeysa waxaan ku shaqeynaynaa hal yacni silsiladood annagoo hubsanayna inaan galnay labadii dacal aan idin tusay ee v-ga xarafka v-ga sameynaya ama xarafka sabca af carabiga annagoo hubsanayna inaan galnay halkana ka hubsanayna inaan kasoo dhex baxnay labadaa liid aad u jeedaan kan iyo kan ay kasoo dhex baxay duntu hal xabo hal stitch ayaan ku sameynaynaa kow kadib waxaan u wareegaynaa silsilada ku xigta oo tan ah yacni v-deedii waa tan silsilada ku xigta mar walba waxaad ku garan kartaa labada silsiladood midna sidan usoo baxay midna halkan dhexda ay isugu imanayaan baa calaamada v ayaad ku arkaysaa tan labaad waxaan ku shaqeynaynaa laba ama tazaayid baan yani ku shaqeynaynaa laba jibaarin kow laba haddana tii saddexaad baan maraynaa waa taa halka la gelayo waxaan ku shaqeynaynaa hal xabo yani silsiladan waxaan ku dul shaqeynaynaa hal silsilad oo ma laba jibaarayno kow kadib waxaan u gudbaynaa haddana silsilada ku xigta oo ah tan waxaan ku shaqeynaynaa laba yani markaan leeyahay waxaan ku shaqeynaynaa isla meeshii baan laba jeer gelaynaa aan ku sameynaynaa gursada buuxbuuxinta ama toolinka buuxbuuxinta waxa ku xigta labaan tan ku shaqeynay tan hal baan ku shaqeynaynaa markaas saasaan kusii wadaynaa safka dhan annagoo ugu shaqeynaynaa kow baan ku bilownay laba haddana kow laba ilaa aan dhameyno waxaan doonayaa inaan idinku baraarujiyo bacdima aan kow ku shaqeynay tii ugu horeysay stitchkii u horeeyay uu hal ahaa ama fardi u ahaa sida halkaa ka muuqata halkaas waa ka arki kartaan waa kan safkan marayno safkan wuxuu ku bilaabmay xabad waata halkaa ka muuqata laba ku xigtay haddana xabad laba markastaba yacni way ka buurnaanaysa waad ujeedaa halkaas laba galay halkan xabad baa gashay halkaas laba way kasoo muuqata halka xabad marka bacdimaad safkan ku bilowday xabad safka dhammaadkiisu waa inaad ku dhammaysaa laba yacni haddii aad intaad xabad halkan ku bilowday halkana xabad kuugu soo dhammaato waxbaa kaa khaldan oo waxbaad ka tagtay ama stitch baad khaladay oo aanad laba jibaarin marka waa inaad shaqadaada dib aad halkan uga eegtaa meesha ka xun tahay kow laba saasoo kale aad u tiraysaa marka aan safkan dhameyno kadibna aan isu soo noqono sidaa waxaan kusoo dhameynay safkii afraad oo aan ku dhameynay hal laba anagoo halkii ugu horeysay amba stitchkii ugu horeysay sida halkaaba ka muuqata hal xabaan ku sameynay stitchkii ku xigay laba saasaana safka ku dhameynay halkii aan idiin sheegay ahayd waa inuu stitchku kugu dhamaadaa laba waa tan waa tii ugu dambeysay aan safka ku khatimay tan ka horeysay waa kow tanna waa laba markaa saasuu kuu saxan tahay haddii aan tirino kow laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban koob iyo toban labiyo toban saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban toddoba iyo toban sideed iyo toban sagaal iyo toban labaatan koob iyo labaatan laba iyo labaatan saddex iyo labaatan afar iyo labaatan shan iyo labaatan lix iyo labaatan toddoba iyo labaatan sideed iyo labaatan sagaal iyo labaatan soddon iyo tan aan ku xidhayno imika oo koob iyo soddon ah markaa saas way kuu saxan tahay tiradaadu waxaad sameynaysaa cashaan inaad xidhid safka sidii caadiga ahayd markarkaad ka saaraysaa kadib waxaad gelaysaa qursada halkeeda hoose adigoo soo jiidaya xadhiga markii dunta soo jiidid waxaad sameynaysaa silsiladii ugu horeysay oo ah tan dacalkeeda dambe ayaad sii gelaysaa kadib duntaad soo jiidaysaa adoo kasoo wada saaraya dhammaan goobooyinka ay irbadda ku dhex jirto sidaa waxaad ku xidhaysaa safkii afraad aan markarka ku calaamadino si aanay nooga labayn haddii aad doonaysid inaad haddaba kasii ballaadhisid shaqadaada intan iminka taagantay maxaad sameynaysaa waxaan sameynaynaa hadda imika waxaan maraynaa safkii afraad safkan aan imika ay tahayna bilowno kii shanaad buu noqonayaa marka kii ugu horreeyay waxaan ku shaqeynay 5 stitch kii ku xigay waxaan ka dhignay 10 oo 11 waan ku xidhnay kii ku xigay waxaan ka dhignay 20 22 waan ku xidhaynay kii ku xigay waxaan ka dhignay 30 30 waan ku xidhaynay qaabkan u tasaayudeynayna waxay ahayd amba aan u laba jibaaraynay waxay ahayd halkan ugu horeysa waxaan ku shaqeynay 5 stitch yani ayaan ku bilownay stitch kastaba laba jibaar baan safka labaad ku
sameynay safka labaad dhammaan laba jibaar bay ahayd. Safkan saddexaad waxay ahayd xabad gooni yani xabad keli ah iyo laba ama laba jibaar stitchka ku xigta. Safkan ku xiga dhammaantii waxaan ku wada dhammaynaynaa bilaa laba jibaarid yani calaa silsilad kastaba waxaan ku sameynaynaa hal korkeeda waxaan ku sameynaynaa hal silsilad yani wax silsilad kastaba korkeeda waxaa lagu sameynayaa only xabad keliyata oo silsilada oo buuxbuuxin ah ama hal qursad oo buuxbuuxin ah ayaan silsilad kastaba korkeeda ku shaqeynaynaa yani anagoo hubsanayna inaan galno labada dacal dhexdooda halka dambena labada dacal kasoo baxno kadib qursadii buuxbuuxinta sameyno. Safka saasaan ku dhammaynaynaa. Waxaan doonayaa inaan idinku baraarujiyo duntu haddii ay kaa dhammaato for example oo kale amba aad doonaysid inaad dunta kalar kale soo gelisid maxaad sameyn kartaa sababtoo ah aniga duntaydan casi hadda imika way soo dhammaanaysaa. Marka ay duntu kaa dhammaanayso ama haddii aad rabtid adigu inaad dhowr kalar ku sameysid shaqadaada maaha yani ma bedelaysid kalarka wax dhibaato ah kuma bedelaysid ma guntaysid si aanu shaqada buurbuuri wax kaaga yeelan. Keliyata waxaad sameynaysaa ayar oo fudud ayaad labada kalar isdhex gelinaysaa. Aan hadda idin tuso sida la isu dhex gelinayo. Duntu markay soo dhawaato dhammaadkeeda ilaa iyo adigu 6 sentimitir oo kale meelahaas ay ka harsan tahay wax aan weyneyn yani ayaa dunta kale keenaysaa. Iminka dunta dhammaadkeedii waa taa laba stitch oo kale aan ku shaqeynaynaa. Markaan iminka gelayo labada dacal dhexdooda anigu ma eegayi because yani shaqada markaad ku shaqeysid wax badan waa dareemaysaa halkay kasoo baxday inay meeshii saxda ahayd tahay. Laakiin adigu markaad ku cusub tahay waxaad sameysaa markastaba iska hubi inaad labada dacal dhexdooda geshid xagga dambena ka hubi inaad kasoo dhex baxday. Duntii dhammaadku waa tan tani waxa weeyaan tii bilowga inaga daayay tan labada gaaban. Duntii dhammaadku waa taas intaasoo kale taqriiban ama in yaroo ka gaaban xogaa ilaa iyo meelahaas inahaas markay ka harsan tahay hal stitch aan ku shaqeyno dheeri ah ayaad waxaad sameynaysaa dunta kalead keenaysaa. kalarkan hadda kalarka doonaysid baad soo qabanaysaa duntiisa waxaad sameynaysaa kadib sida caadiga ahayd ayaad waxaad u qabanaysaa xadhiga adigoo soo marsiinaya yani saasoo kale usoo laabaya gacantaada ugu soo laabaya. Gacantaada markaad kusoo laabtid waxaad sameynaysaa irbadda sidii caadiga ahayd ayaad waxaad gelaysaa stitchka dhexdeeda meeshii aad gelaysay caadi baad u gelaysaa adigoo raba inaad soo qaadatid dunta. Kadib instead of inaad kan soo jiidid halkii aad kan kasoo jiidi lahayd cas kan cas hoos baad iska marinaysaa caadi tan ayaad caadi usoo qabsanaysaa saasoo kale tan ayaad soo jiidanaysaa marka saasun baad ugu sii qabanaysaa. Shaqadaadana caadi baad u wadanaysaa. Dumahan kaa dambeeya maxaad sameynaysaa cashaan inaanay ku waalin amba shaqada markastaba kaa xumeynin saasaad u qabanaysaa adigoo markan aad guntaysid dunta ku sii qabsanaya. Yani maxaan ka wadaa iminka waa tan labada farood waxaad ku haysaa tanna waxaad ku adkaysay dunta cusub ee aad sameynaysid. Marka waxaad sameysaa saasoo kale ayaad u haynaysaa kuwan adigoo dunta korka kasoo marinaya waad kusoo laabaysaa irbadda sidii caadiga ahayd ee aad ugu shaqeynaysid tacas ayaad ugu shaqeynaysaa. Marka maxay sameynaysaa halkan baleeg way ka guntamaysaa duntana qabanaysa. Marka shaqada saasay kaaga dhex qarsoomayaan waxba iyadoo aanay dhibaato ah ku keenin. Markaad ilaa iyo 3 ama 4 stitch aad kusoo shaqeysid adigoo sidaas ugu adkeynaya ama ku qabanaya duntan kale haddii ay ku dhibaan ama ay kugu dheeraadaan waxaad sameyn kartaa inaad iska jartid. Sidoo kale waxaad sameyn kartaa inaad iska daysid oo iska laalaadaan sida kan oo kale ood hadhow toole irbadda nadiifinta ama irbadda caadiga kurashaga loo isticmaalay caaga ah aad keentid oo aad ku dhex qarisid shaqadaada labaduba adiga yani choice-ka adiga leh. Marka waan ku shaqeynaya anigu waan sii qaadanaya xadhiga anigoo galaya markastaba soo jiidaya dunta ku shaqeynaya. Marka markastaba haddii ay duntu kaa xumaato haddii ay duntu kaa go'do amba ay kaa dhamaatay amba aad doonaysid inaad kalarka bedeshid yani saasun baad isugu qabanaysaa adigoo aan isku dhibin.
imika tacas haddaan rabay inaan ku dhamaystiro caadi bay ahaan lahayd laakiin yani way taalaa laakiin waxaan isleexday tus bal markay kalarka xataa ay bedelayaan yani sida la sameynayo marka saasoo kale baad u wadaysaa adigoo markastaba hubsanaya inaad sidii caadiga ahayd amba sidii aan idin tusayay marka koobaadba halkii stitchba ama halkii silsiladba hoosteeda aad hal mar geshid saasaad ku wadaysaa safku ilaa uu dhamaado markuu safku inoo dhamaado ayaan isku soo noqonaynaa adigoo hubsanaya inaad mid kastaba hal xabo ku shaqaysid yani wax laba jibaarin ah safkan ma jirayo marka aan dhameynay safkii shanaad saasay shaqadeenu ekaatay goobadiina saasay u ballaaratay kalarkan aan ka gelinay dhexda sababtoo ah kalarkayga casoo uu sii dhamaanayay safkan u dambeeyay waxba kumaanaan kordhin markaa safkii ka horreeyay wuxuu ahaa 31 baan malaynayno ha aan tirin haddana kani waxa weeyaan kii lagu xidhayay weli maan xidhin marka halkan ka bilaabno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 laatan koob iyo laatan laba iyo laatan saddex iyo laatan afar iyo laatan shan iyo laatan lix iyo laatan toddoba iyo laatan sideed iyo laatan sagaal iyo laatan soddon waa sidaan sheegay koob iyo soddonna waa kad ku xidhaysid markaa sidaa sax baad u socotaa marka aad xabad xabad ku shaqaysid stitch kastaba yani dabcan tiradii waxba kama bedelmayaan sababtoo ah xabadii xabadeedii unbaad ku shaqaysay laakiin waa markaad wax jibaaraysid marka ay iska bedelayaan marka daba jibaarka sameynaysid weeyaan markay wax iska bedelayaan amba ay tiradu sii kordhayso waxaan sameynaynaa halkan hoosan ka gelaynaa stitchka kadib silsiladan ugu horeysa dacalkeeda dambaan sii gelaynaa duntan halkaa kasoo jiidaynaa anagoo kasoo baxayna dhammaan goobooyinka ay ku jirto irbadu hana ilaawin inaad calaamadeysatid ama aad markarka ku xidhid shaqadii halka dambe ama liidadkii sida aad u jeedid dabcan halka hoose ku qarsoomeen marka wax alaali wax ka muuqda ma jiro dacalkaas yar ayaa ka hadhay ee suulkayga u dhow waa afkii hore dunta kii casaana halkaas ku dhamaaday marka waxaad samayn kartaa halkaas waad ka jari kartaa in wax dhibaato ah ma laha haddii saas iska ahaadana waa caadi sababtoo ah wuu qarsoomay already safkii lixaad haddii aan iminka idhaahdo sidaan u bilaabaya safkan waxaan iminka ku wada dhameynay wuxuu ahaa dhammaan bilaa kordhin hal xabaan ku dhameynay safkii ka horreeyayna waxaan ku sameynay hal laba ayaan ku wada sameynay safkan haddaba maxaan sameynaynaa stitchka ugu horeeya oo kan ah silsilada ugu horeysa hal mar baan gelaynaa ka ku xiga waxaan gelaynaa hal mar annagoo hubsanayna inaan markastaba kasoo dhex baxno meeshii aan ku heshiinay ka ku xiga waxaan gelaynaa laba yacni waxaan ku sameynaynaa laba jibaarin annagoo laba jeer gelaynaa isla meeshii oo ku sameynayna qursadii buuxbuuxinta stitchka ku xigta waxaan gelaynaa hal mar stitchka ku xigta waxaan gelaynaa hal mar stitchka ku xigta waxaan gelaynaa laba mar yacni waxaan sameynaynaa laba jibaarin ama tazaayud sidaasaan ku wadaynaa annagoo gelaynaa hal laba saasaan ku wadaynaa kadibna safkaan ku dhameynaynaa adigoo markastaba hubsanaya maadaama aad hal ku bilowday waa inuu safkaaga ku dhamaadaa laba marka aan safka dhameyno aan isku soo noqono insha allah dib baan idinku soo noqday markaan dhameynay leenkii lixaad 1 2 3 4 5 leenkii lixaad markaan dhameynay waxaan ku dhameynay leenkan sidaan idiin sheegay hal laba saasaan ku dhameynay maadaama aan hal ku bilownayna waa inuu laba ku dhamaadaa sida idiin muuqata markastaba stitchkaaga inay sax tahay in kalakaasaad kala socon kartaa sida halkaa ka muuqata labada markaad laba jeer meesha gashay markaad hal mar gashay isku mid ma noqonayaan marka
waxa u dambeeyay hal laba mid baan halkan galay tana waa tii lagu xidhayay tirada haddii aan tirano waa inay noqdaan 40 kan lagu xidhayna 41 ku noqdaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 afartan iyo kan aan ku xidhayno oo 41 ah marka tiradaada waa sax 41 haddii ka badato amba ay ka yaraato waa inaad ku noqotaa because waxba kaa khaldan waxaad gelaysaa halkaa kadib waxaad soo jiidaysaa dunta kadib silsiladii ugu horeysay dacalkeeda dambe waa kaasaad gelaysaa adoo soo jiidaya dunta kana soo saaraya dhammaan goobooyinka ay ku jirto irbado goobadeena saasaan ku joojinaynaa sababtoo ah basickeedii waan sharxay wixii intaa ka dambeeya waxay noqonaysaa qaabkaad usii kordhinaysid qaab soo noqnoqonaya haddii aad doonaysid inaad iminka intaa kasii kordhisid maxaad sameynaysaa safkan waxaad ku xidhaysaa aad ku xigsiinaysaa safka 7 waxaad ka dhigaysaa dhammaan mid kastaba hal xabaad ku shaqeynaysaa yani waxaad soo celinaysaa tii aan markii hore ku shaqeynayo kale silsilad kastaba hal xabaad ku dul shaqeynaysaa yani silsilad laba jibaaran ma jirto safka marka dhameysid isla tiradii baad haysanaysaa waana 41 ayay ku ahaanaysaa safka ku xiga marka haddaad rabtid inaad sii ballaadhisid maxaad sameynaysaa markaad bilaabaysid waxaad ka tegaysaa waxaad ka dhigaysaa 1 baad ku shaqeynaysaa ta ku xigta 1 baad ku shaqeynaysaa ta kusii xigta 1 baad ku shaqeynaysaa ta afraad ayaad waxaad ku shaqeynaysaa laba jibaarin yani markastaba mid baad kusii kordhinaysaa yani waxaad sii kordhinaysaa tirada aad ka tegaysid ama aad xabad ku sameynaysid halka hore haddii aan ku noqono amaan bilowga kusoo celiyo halkan 5 baan ku shaqeynay safka ku xiga waxaan ku shaqeynay laba jibaarin oo calaamid waxaan ku shaqeynay 2 mid korkeeda safka ku xiga laba jibaarin baan ku wada shaqeynay dhammaan safka ku sii xiga waxaan ku shaqeynay sida halka idinka muuqata hal laba ayaan ka dhigaynay yani hal xabo waxaan ku dul shaqeynaynaa hal xabo oo stitchka ku xigta markiiba waxaan ku shaqeynaynaa 2 safka ku xiga dhammaan stitcheska waxaan ku wada shaqeynay korkooda hal xabo maxba maana ku kordhin safka ku sii xiga waxaan sameynay 2 يعني hal xabo fardi ah labaan kusii xigsiinay safka ku xiga maxaan sameynaynaa waxba kuma kordhinayno dhammaan waxaan ka wada dhigaynaa hal stitch waan sii kordhinaynaa waxaan ku sameynaynaa ta afraad ayaan u boodaynaa oon ka dhigaynaa 2 yani waxaad ka boodaysaa ta koobaad waa caadi xabad baad ku samaysaa ta labaad caadi xabad baad ku samaysaa ta saddexaad caadi xabad baad ku samaysaa ta afraad ayaad ku sameynaysaa tazaayudka amba laba jibaarinta kadib markaad safkaas dhameysid waxaad sameynaysaa safka ku xiga haddaad rabtid inaad sii ballaadhisid dhammaantood waxaad ku wada shaqeynaysaa hal xabo kadib waxaad rabtaa inaad intaa kasii ballaadhato safka ku sii xiga haddana tazaayud baad kasii dhigaysaa maxaad ka dhigaysaa waxaad ka dhigaysaa kowda ta ugu horeysa hal xabo ta ku xigta hal xabo ta kusii xigta hal xabo ta kusii xigta hal xabo ta shanaad ayaad ku sameynaysaa tazaayudka marka haddii aad u fiirsatid markastaba tazaayudku dib unbuu usii noqonayaa waxa sii badanaya tazaayudka qursada tazaayudka ayaa kolba dib usii durkaysa adigoo kusii daraya yani sii kordhinaya tirada qursadaha amba silsiladaha aad ku shaqeynaysid halka xabee fardiga marka ilaahay inta aad ka gaadhaysid adigu sayska aad doonaysid ayaad saas ku wadaysaa hal saf waa tazaayud hal safna caadi unbaad ugu shaqeynaysa mid walba hal xabo ilaahay inta aad ka gaadhid adigu balaarhka aad doonaysid iyo sayska aad doonaysid adigoo mar walbana hubsanaya markaad tazaayud samaysid tirinaya yani tirada kuu korodhay inta ay tahay tirada ay kuu korodhay waa inay ahaataa marka tazaayud samaysid tiradii ay saxa kugu noqotaa yani wixii aad ku dartay haddii aad 10 qursadood aad haysatay ma 40 qursadood oo kale haddaad maalan oo kale haysay calaa mid aad ku dartay ama aad yani aad qursad ku samaysay laba jibaarin ah mid kastaba aad laba jibaaraysay dee 40keedii waa inay keentaa waayo xabadiiba labaad ku dul samaysay laakiin haddaad haaf samaysid oo aad midna ku dartid midna aanad ku darin macnaatu waa haafkii 40ka
ilaan xabadna waxaad ku samaysay mid caadi xabadna waxaad ku samaysay laba marka waa inay 20 kuu kordhaan marka waa inay 60 stitch aad haysataa marka saas oo kale aad u xisaabinaysaa mar walba hadda iminka waxaan rajeynayaa aad iyo aad inay waadix u ahayd sidan idinku sharxay ayadoo samayn kartaan goobooyin noocyadooda kala duwan goobooyinka duntan oo kaliya lagama sameeyo duntan kale waa laga sameeyaa tan iminka aan idin tusay waa laga sameeyaa laakiin duntan haddaad ku baratid baa fiican sababtoo ah waa dunta aad ku samayn kartid boorsooyinka noocyadooda fiican haddii ay jiraan wax aanad fahmin amba aanad sharaxa u baahantii meelan ku celiya insha allahu tacaala waa idinla soo socodsiin doontaan waxaan rajeynayaa inaydun aad u fahanteen aad iyo aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh